جالية سلمان حاجي هيرد وأنا خلق ورهاي مدرسة لقصور دوي وزير أحمد جامع جنجلي والله ورن كلن كان عاوة هالكدعاية وتالكن وين شيراتون جالية قصور دويسي وزير كدول استهودا مدرنا أحمد جامع جنجلي بسم الله الرحمن الرحيم عاوة وحشرف نوع أين نسود وزير كهودا الدولستا فدرالكا علي أحمد جامع جنجلي وأنا لما صاحبنا يهرس ونقاني آد بان وفرح سنة هاي جو قروح بدنا يا ماشا كم وغدا كوميونيتي يودن باشاليد يودن باشوت من عاوة هالك كان سي لما أرجع يعاوة ودعي هذا الله في أنا يا ماشا كدعي شاليد قرآن سوي ما باشوت لودي وحنقولنا إن شاء الله إنه وزير نوصل نقطة within 6 months si aan u sii dardargelino rasiimaadka jaaliyada iyo qabadka jaaliyada السلام عليكم haddii aan kaa weydiiyo gaar ahaan wasiirka oo aanay axmed jaamac jigire oo aan ahayn markii ugu horreysay oo wasiir noqdo horena u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda waqtigii sheekh shariif maxaad oga sheegi kartaa waxqabadka gaarka ee uu qabtay jaaliyaddeena khaatumo ama SSC hadday marka hore ahayd بسم الله الرحمن الرحيم وارونتا علي أحمد جامع جنجلي مركي هو وزير كاريمها دبته إيمكا فرق وين بعض الحياة أو لبضن أيو نكا سلا وقبت جالية بدي يريد فيجي إلكا إنه كارها نجا عاوي حقا إيربورد لا إيربورد حبوه إيربورد كتله واحد ودا علي إنه ديار بهمانتا جالية دخل قبته ودينا استاغ السلام عليكم waxaan maqlayaa hadda isagoo cali madhowed ka hadlaya eerboordada waddanka laga samaynayo gaar ahaan mid proposalkiisa la isla soo qaaday magaalada laascaanood waxaa jirta markaa imaaraad carabtu diyaarada ay leedahay inay duulimaado toosa ka bilaabaysa carabta iyo magaalada hargeysa ma is leedahay dowladda federaalku iyada maaragtay green light siinaysa in somaliland ay waxay doonto qabsato oo aan marnaba dowladda federaalku wax joojina ku samayn arrimaha gaarka ah ee ay somaliland rabto iyagoo dowladda aqoonsanay ahayn inay dhulka samayso dabcan waa arrin iska muuqata arrinkaasi in dowladda federaalka iyo aad moodo inay u dabacsan tahay nimanka kala doonaya inay kala gooyaan ummadda soomaaliyeed hawada soomaaliyeed waa isku mid waxaana laga maamula xamar ola si gooniya u yeelan kartaa ama xiriirka aniga sharci ahaan yani sidaan qabo dowlad goboleed xiriir gooniya la yeelan kartaa dowladaha ajnabiya inaanay jiri karin baan u malaynayaa marka waxaan ka rajaynayaa dowladda federaalka soomaaliyeed inay xilkii looga baahanaa ka soo baxdo oo ay midayso duulimaadyada hawada waxaanay u ogolaan aan waddanka soo gelin waayahay hadaynu kusoo gabagabeyno su-aasha ugu dambaysa dadka halku dhegaysanaya gaar ahaan shacabweynaha ku dhow toronto iyo hareeraheeda oo dhowr kun oo qof oo shaaliyadda khaatuma iyo kuwa kale caalamka joogaba hadalkan uga soo jeedin waxaan u soo jeedin lahaa ummadda soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay horumar waxay u baahan tahay walaaltinimo waxay u baahan tahay inaynu meesha aynu hadda joogno hore uga sii soconno waxaynu u baahannahay inaynu gaadhno one man one vote si looga baxo carqaladaha iminka jira waxaan ummadda soomaaliya u sheegi lahaa inay gacantays wada qabsadaan dowlad goboleedyada hadda la sameeyey inay si fiican ula shaqeeyaan dowladda federaalka ayaan soo dhaweynayaa waxaan soo dhaweynayaa waqtigii inaga lumay 30 sannadood ahayd inaynu dib u soo qabanno futureka ilmaha yar ee maanta soomaaliya jooga sabiga iyo waxba kala ogeyn aynu futurekiisa meel dhigno oon ku dadaalno sida ilmaha yar u yeelan lahaa mustaqbal adduunka la jaan qaada kaas waa gudoomiyaha jaaliyadda khaatumo toronto mudane salebaan xaajiirad waxaan kula kulannay madasha shirka asalaamu calaykum وعليكم السلام waxaan kaloo halka kula kulannay zaynab xasan oo ka mid ahaa dadkii soo dhaweeyey mudane wasiir axmed jaamac jingeli zaynab naga waran madashan caawa iyo xafladda loo sameeyey wasiirka booliska hawada federaalka السلام عليكم عبد الرشيد بدونك كو سلاميا ادي اد بان ugu faraxsanay inaan soo dhaweeyno mudane jingeli oo nooga yimi dalkii Soomaaliya aanu afurkan halkan bisha Ramadaan ee barakaysan ugu sameeyno aad baan ugu faraxsanahay dhamaantayo jaaliyadoo dhan oo isaga yimi magaalada hareeraheeda adiguna aad baad ugu mahadsantahay waraysigaaga aad buu wasiirku nooga farxiyay warar badan oo wadankii oo lagu farxo runtii noo sheegay una mahadsan yahay السلام عليكم انت سان كسو كوبي
ما مركي هو الرئيس أحمد شاهد جنجل وزير كان دولة فدرالكا هو وقفت دad ka khaatumo ama SSC markii wasiirka arrimaha dibadda ahaa waxa jirtay waqti wasiirka arrimaha dibadda ahaa oo mudane xagla toosiyay cali sabaray dhowr jeer diyaaradda Nairobi laga reebay isagoo wasiirka arrimaha dibadda arrimo noocaas ah oo dadka bulshada degan ay ka tirsanayaan baa jira aad kala socotaa السلام عليكم وزير جنجلي أنا وإنتان أوجاي wuxuu ka tirsanaa dawladda federaalka marka maadaama aanay jirinin dawlad hore oo khaatuma ah oo matasha magaca gobolada Sool Sanaag iyo Cayn wixii horena ay jabhado iyo iska ahaayeen u malayn maayo inuu xiriir saasan la lahaa dadka meeshii jooga hadeerse waxay kaga duwan tahay situationku waxa jira dawlad madaxweynaha jira wasiiraa jira jaaliyadii baa dhisan marka aad iyo aad uu yahay nin khaatuma uu nagu soo dhaweynaya arrimaha khaatumo bari dhaweydna waa wakiide Turkiga ka qayb galay shirarkii lagaga hadlayay waqooyiga Soomaaliya arrimaha federaalka midaynta iyo dalku inaanu kala goyna aad iyo aad ugu dhundaloolaa kuna doonaya inuu difaaco midnimada Soomaaliya سير حسن آريات بعض ما ستاي وحكم بداية كان بروبلم ليس دوين تعاون لوس مدن جنجلي مقالة ترطة السلام عليكم وعليكم السلام همبلي أول خاتم ودتك أدون كدعالة دي سكون ولي وطن كيبا والسلام يا أمري كويسة